xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa shantii sano u dambeysay magaalada Guday ka waday wadooyin waaweyn oo laami ah kuwaas oo wax badan ka tari doona kordhinka dhaqaale iyo dhismaha magaalada Guday. Sanadkan dhamaaday ee 2015 ayaa waxaa jiray wadooyin dhowr ah oo ay shaqadoodu hakad ku timid, balse sanadkan bilowga ah ayaa waxaa si xawli ah u socda dhamaystirka wadooyinkaasi hakadka ku yimid iyo waliba qaar kale oo cusub oo sanadkan la bilaabay. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Guday ayaa bogaadiyay wadooyinka halbowlaha ee xukuumaddu ka dhisay magaalada Guday. waxaan bogaadinayaa xukuumaddu sharafta leh wadooyinka faraha badan ee magaalada nooga hirgelisay. waxa kale oo aad u sii bogaadinayaa wadadii magaalada aadka ugu baahnid isku xidhisay Hargeysa iyo Guday inay bilow tahay. waxaan rajaynayaa wadooyinka faraha badan ee magaalada laga hirgeliyay inaan xukuumadda ku taageersana una baahneen horaan aanan haysanin. waxaan leenahay mar walba xukuumadda garabkeedana waxaanu ka codsan lahayn in la dardar geliyo oo waxa weeyo ay socoto oo waxa weeyo si degdeg ah loogu dhameystiro ka darawalin ahaan aad baan u mataqaanaa u faraxsanahay oo una mahadnaqaynaa dawladda bilowday inay hadana noo dhameystirto aad baan u faraxsanaan lahayn walowde markaan soo gallo intan in xun bay ahayd xaj qodhob baa la dhahaa waa bajaajtii iyo wixii ma garanayo aad baan ugu halisyo badan bay lahayd wadada wuxuu hadda ma garanaysaa oo wadadan hadda buundada iyo xaj qodhob hadda la bilaabayo wadadaas noogu dareed wadada insha Allah hadda waa la bilaabay haddana ma garanaysaa waxaan leenahay si fiican ha loo dhameystiraan leena wadadaas wadooyin qabyo ah yeera jiro marka wadooyinka waxaan leenahay si fiican ha loogu dhameystiro tagalaan ku daray waxa weeyaan wadadan hadda aan taaganahay stop ahead marka stopka intii si fiican loogu sameeyo baabuurta seen isku dhicin ma garanaysaa si fiican loo hagaajiyo stop loo sameeyo ayaan leeyahay Guday kulay in badan ayaan joogay magaalada waagii hore ilaa dargigii magaaladu adoo waxa iskeed meel magac ah magaalo ma jirin muuqata hal yacnaha systemka dawladnimada lagu fulin jiray ma ahayd hadda kulay intii hadda isbedelku dhashay wax qabad badan baa la arkay dhanka wadooyinka waxa weeye wadooyinkii meel kasta waa la wadaa si fiican bay u socotaa kulay wax kasta oo ujeedada wax loo dhimanayo wax qabad ma loo dhimanayaa wax qabad haddii la helo wax kasta buu hagaagi محمد حاشي قري SR TV magaalada Guday.